gabadhii dhagarta badnayd ayaa si taxadar leh ugu dhaqaaqday inay faraantiga qaadato isla markaasna hooyadii gabadha ayaa timid guriga wiilka iyadoo qaylinaysa gabadhaydii ii soo celi qoyskeenu ma noolaan karo iyada laanteed laakiin waxay indhaha ku dhufatay gabadhii dhagarta badnayd oo meel aan ka fogeyn taagnayd markaasay aad ula yaabtay adiguna maxaad halkan ka qabanaysaa ayay tiri gabadhii dhagarta badnayd markiiba waxay ka shakiday in gabadhu been u sheegtay sidaas darteed waxay bilowday inay su'aalo weydiiso isla waqtigaas gabadhii ayaa soo muuqatay waxay gacanta ku qaaday ul yar iyadoo indhaha uga isharaysa hooyadeed waxayna tiri marwadan ayaa dhowaan halkan soo degtay hadalkan waxay ugu sheegaysay hooyadeed inay iska dhigaan inaanay garanayn gabadhii dhagarta badnayd qoyskii gabadha ayaa si degdeg ah u fahmay qorshaha waxayna si diiran u soo dhaweeyeen martidii gabadhii dhagarta badnaydna dhoola caddayn been ah ayay samaysatay markii ay mar kale isku dayday inay faraantiga qaadato walaalka yar ee gabadha ayaa gacanteeda istaajiyey markay aragtay sida qoyska oo dhan isu taageerayaan gabadhii dhagarta badnayd waxay dareentay niyad jab wax yar kadib wiilkii ayaa yimid gabadhu waxay qalbigeeda iska tiri qofka uu wiilkani neceb yahay awood ma yeelan karo haddii uu jeclaadana gabadhan dhagarta badan aniga iyo qoyskayguba dhibaato weyn ayaan geli doonaa sidaas darteed waxay go'aansatay inay raalli geliso wiilka inkastoo aanay garanayn sida ay gabadhaasi u xeelad badnayd waxay markaas ku tiri wiilka maanta waalidkay way yimaadeen aan guriga ku wada cashayno waxaan ku karinayaa feeraha doofaarka ee macaan iyo dhanaan ee aad jeceshahay wiilkii ayaa ugu jawaabay haye bal aan aragno sida aad u kariso hooyadeedna markiiba waxay tiri degdega aynu u baxno oo aynu soo iibino waxyaabaha cuntada lagu karinayo laakiin walaalkii yaraa ayaa yidhi aniguna waan idin raacayaa markii ay mashquulsanaayeen gabadhii dhagarta badnayd waxay mar kale isku dayday inay faraantiga qaadato balse walaalkii yaraa ayaa haddana ka hor istaagay hooyadii ayaa markaas tiri adigu halkan joog oo martida la sheekayso aniga iyo aabbaha ayaa soo iibsanayna waxyaabaha loo baahan yahay gabadhii dhagarta badnayd waxay qasab ku samaysatay dhoola caddayn iyadoo qalbigeeda kale qoyskani ula kacayay sidan u samaynayaan gabadhii dhagarta badnayd ayaa dhoola caddayn qasab ah samaysay iyadoo tiri musqusha ayaan yar aadayaa markii ay baxday wiilkii ayaa gabadhii weydiiyey qoyskiina oo dhan ma yaqaaniin gabadhan markuu arkay gabadhii oo ka labalabaynaysa jawaabta ayuu haddana yidhi maxaa dhab ahaantii socda gabadhii ayaa ku jawaabtay dhibaato hore ayaa naga dhexaysay laakiin weli ma garanayo waxa ay qorshaynayso sidaas darteed ma doonayno inaan si toos ah uga hor imaano fadlan ila shaqee si wanaagsan ula dhaqan laakiin ha ku dhicin dabinkeeda wiilkii ayaa qoslay isagoo yidhi sababtee gabadhii ayaa aamustay markaas ayuu yidhi waan fahmay sidaad sheegtay ayaan yeelayaa gudihiisa ayuu ku fikiray in gabadhu masayr dareemayso isla waqtigaas walaalkii yaraa oo tufaax cunaya ayaa dareemay wax kursiga hoostiisa yaala markuu eegay wuxuu helay faraanti qurux badan wuxuu ku dhawaaqay walaashay faraantigan aad buu u qurux badan yahay gabadha aan jeclahay ayaan siin doonaa gabadhii ayaa yaabtay waxayna si degdeg ah u qaadatay faraantigii iyadoo fajacsan ayay tiri sidee laba faraanti oo isku mid ahi u jiraan kan xaggee ka keenay walaalkii yaraa ayaa ugu jawaabay kursiga ayaan ka helay kadibna si lama filaan ah ayuu wax u xusuustay gabadhii dhagarta badnayd marar badan ayay ii soo dhawaanaysay waxaan moodayay inay si kale ii taabanayso balse hadda waxaan fahmay inay faraantigan raadinaysay markaas ayay gabadhii hubsatay in faraantigu ahaa bartilmaameedka gabadhaas waxay faraantigii ka qaadatay walaalkeed iyadoo tiri wanaagsan hadda waxaan ku qaban karnaa dabinkeedii waxa keliya ee aan samaynayno waa inaan labada faraanti isweydaarsano wiilkii ayaa eegay gabadhii oo ku faraxsan qorshaheeda dabadeedna wuxuu weydiiyey ma garanaysaa kee yahay kan dhabta keese yahay kan been abuurka gabadhii ayaa ku jawaabtay walaalkay baa helay isaga ayaa garanaya walaalkii yaraa ayaa eegay labada faraanti ee hortiisa yaalay dabadeed isagoo xishood yar leh ayuu yidhi walaashay run ahaantii waan isku khalday hadda ma xasuusto kii aan helay gabadhii ayaa tiri aan gabadhan dhagarta badan weydiino faraantiga kan saxda ah markaas ayay faraantigii miiska saartay oo isla markiiba baxday daqiiqada yar kadib gabadhii dhagarta badnayd ayaa ka soo baxday musqusha balse waxay ogaatay in qof walba meesha ka maqnaa waxay u dhaqaaqday qolka fadhiga halkaas oo ay ku aragtay faraantigii oo miiska saaran markii ay qaaday ayay garatay inuu yahay mid been abuur ah kadib waxay weydiisay shaqaalihii guriga waxa ku dhacay faraantigii ay horay ugu aragtay kursiga balse shaqaalihii waxay ku jawaabtay inaysan waxba ka ogeyn gabadhii dhagarta badnayd ayaa xanaaqday oo tiri jooji iska dhigista isla hadda ii dhiib markii ay shaqaalihii diiday inay qirato wax ay og tahay gabadhii dhagarta badnayd waxay bilowday inay meel kasta ka raadiso arrintaas markay aragtay gabadhii kale waxay hubsatay in faraantiga gacanteeda ku jira uu yahay kii saxda ahaa kadibna way soo dhaqaaqday iyadoo leh maxaad raadinaysaa gabadhii dhagarta badnayd ayaa ku jawaabtay inay hilmaantay hilqadihii dhegaha markaas gabadhii kale ayaa tiri taasi dhib maaha wiilka ayaa ii keenay hilqado badan waxaana ku dooran karaa kuwa ugu quruxda badan kaalay aan ku tuso isla markaas gabadhii dhagarta badnayd waxay aragtay faraanti dhulka yaal degdeg ayay u qaaday wayna eegtay kadibna waxay tiri kan ayaa ah kii saxda ahaa markii ay idho noqotay waxay si caro leh ugu fiirsatay faraantiga iyadoo leh adiga iyo qoyskaagaba waan idin burburin doonaa mana soo laaban doontaan mar dambe wax yar kadib waxaa albaabka laga garaacay degdeg ayay faraantigii u qarisay kadibna cod dheer ayay ku tiri yaa markaas ayay maqashay codkii wiilka oo ka jawaabaya gabadhii dhagarta badnayd qalbigeeda ayay ku farxday iyadoo u malaynaysay in qorshaheedii guulaystay waxay rumaysnayd in dhowaan ay booska gabadha kale qabsan doonto oo ay noqon doonto gabadha ugu muhiimsan sheekadan waxay si ula kaca hoos ugu siibtay suunka dharkeeda kadibna waxay tiri soo gal markii uu wiilkii soo galay ayay ku tiri maxaa habeen dambe ku keenay halkan wiilkii ayaa qosol yar la yimid isagoo leh miyaadan ku faraxsanayn inaad i aragto gabadhii dhagarta badnayd waxay qalbigeeda iska tiri ragga oo dhan waa isku mid gabadhaas kale nacas ayay ahayd muddo dheer ayay isku dayaysay inay qalbigiisa hesho balse aniga dhowr maalmood gudahood ayaan dareenkiisa soo jiitay kadib waxay isku dayday inay soo jiidato wiilka hase yeeshee wiilkii ayaa yidhi ka waran haddii aan ciyaarno wax ka xiiso badan iyadu waxay ku jawaabtay haa dabcan maxaad rabtaa inaan ciyaarno laakiin markii ay aragtay waxa uu wiilku la soo baxay isla markiiba ayay tiri maya tani fikrad wanaagsan ma aha